waxaa maanta garoonka Daala Stadium ee magaalada Ceergaabo lagu soo gabagabeeyay tartanka koobka kubadda cagta ee bishii barakaysnayd ee Ramadaan ka soo bilowday garoonkaasi kaasi oo ay ka qayb galayeen muddadii uu socday badiba kooxaha ciyaaraha ee kala duwan ee degmada Ceergaabo waxaana gabagabadii tartan ciyaareedkaasi oo isugu soo hareen labada kooxood ee kala Colorsum iyo Samsung Group ay guusha koobkaasi ku raacday kooxda Colorsum munaasabadii kooxda ku guuleysatay koobkaasi lagu guddoonsiinayna waxa goob joogayaalka ahaa barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceergaabo isuduwaa wasaaradda ciyaaraha ee gobolka taliyaha qaybta booliiska iyo xubno kale oo ka tirsan bahda ciyaaraha iyo waliba dadweyne kale oo tiro badan ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha koob ciyaareedkaasi Axmed Cumar Taleex iyo isuduwaa wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guuleed koobkan wuxuu soo socday bishii barakaysnayd waana ciyaartii kama dambaysteed maanta labada kooxood dhex mareysay waxaana ku guuleysatay Colorsum mar labaad hambaliyaan u dirayaa waxaan kaloo hambaliyo u dirayaa kooxdii labaad ee kaalinta labaad soo gashay ciyaaraadu aad u qurux badan iyana soo bandhigtay maanta waxaan u taaganahay koobkii Ramadaan bishii barakaysnaa soo socday muddo dheer oo inaga qaabshay shirkadda Astameedi ayaan maanta soo gabagabeynayna waxa ku guuleysatay naadiga Colorsum waxay ka guuleysatay naadiga leedahay Samsung Group wax badan iyo wax kasta oo soo dhacay wuxuu ugu dhamaaday si nabadgelyo ah qurux badan oo wanaagsan oo qiimo iyo qaaya leh waxaan mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka maayirka degmada taliyaha qaybta markasta iyo mar walba garab taagnaa nalana joogay waxaan iyana aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Astameedi oo naga qaabishay inaan koobkan noo hirgalo waxa ka dhacday ciyaar qurux badan oo aad iyo aad u qurux badan laba tiim oo adag isku kulmeen guusha waxay ku raacday tiimka ka haddaan nahay shirkadda Astameedi cidda koobka qaada awalba waxaan u ballan qaadnay inaan ku casuumayno Hargeysa tiimka badiya xafladiina wayno habeen dam koobkii bisha barakaysan ee Ramadaan inooga socday gagada ciyaaraha Daala Stadium oo maanta gabagabadii iyo guntii maanta ku ekeyd labadii kooxood ee isku soo baxay way kala calfadeen kooxda Colorsum iyo isku soo baxay Samsung Group inta kadib markaan ka imaado waxaan madashan uga yeedhiyaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyihii koobka bisha barakaysan ee Ramadaan Axmed Cumar Taleex Suufa waxaan aad ugu hambalyeeynayaa kooxda guuleysatay Colorsum iyo kooxda kaleba Samsung Group labadaba waxaan leeyahay hambalyo labadiina waad guuleysateen koob qurux badan ciyaar qurux badan ayaad soo bandhigteen waxaan kaloo mahadcelinayaa daawadayaasha sharafta leh ee sida nabadgelyada maxaan ku dhahay spirit kale uga soo qayb galay waxaan leeyahay idinkuna waad mahadsantihiin runtii waxa Ilaahay loogu mahadiyaa inuu koobka si nabadgelyo inoogu soo dhamaado iyadoo wax dhibaato ka dhicin waxaan leeyahay guuleysta halkaas aan hore uga sii wadno maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna u hambalyeeyay kooxda halkaasi guusha ku raacday iyaguna sidoo kale kooxda laga guuleystay ku amaanay ciyaar wanaag ay sameeyeen halka kale ka ciyaarisay aad iyo aad baan idin mahadinaynaa aad baan mahadsantihiin nabadgelyada iyo ciyaar wanaaga iyo laba tiim adag inaad tiim baan qaraynaa waxaan rajaynaynaa inaad guul keeni doontaan gobolka Sanaag insha Allah taala aad iyo Colorsum oo ku guuleysatay koobkii Ramadaan waxaan leenahay hambalyo waxaan waa ciyaar waa bermadow iyo barcad ma aha mar walba inaad doonto inaad guuleysato waad guuleysan kartaa waa laga guuleysan karaa waxaas laakiin naga reeban xanaaq iyo cadada waxaan idinku hambalyeeynaa ciyaarta muujiseen wanaageeda deganaanshaheeda arintuna waxay ku fiican tahay waa intaasoo nu koosii dhawaanayno goboladii la tagno waynu guuleysanayna insha Allah laakiin aan ilaalino akhlaaqdeena iyo asluubteena gabagabadina waxa kooxda Colorsum halkaasi lagu guddoonsiiyay koobkii ay ku guuleysteen ee tartankiisu soo bilowday bilowgii bishii barakaysnayd ee Ramadaan Cabdiraxmaan Axmed Star TV magaalada Ceergaabo.